Xudayfe waa wiil yar oo 10 sano jir ah oo muddo sanad iyo bar la xanuunsanayay afka oo isku dhaganaa ayaa waxaa qaliin lagu guuleystay u sameeyay dhakhaatiirta sanka cunaha iyo dhagaha waa tan hooyada wiilka dhashay oo ka warbixinaysa xaaladda wiilkeeda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سهرة علي أحمد ويل كان يرى حذيفة علي إبراهيم الله تبنجر كأه عاد كورة يوم ملك دعاء أفكو كجوي أفكو كالقادم وهاي وحمو عني كرين وحمو عابي كرين الحمد لله ما هذا كواد مدى الله إسكاله مدى لبانا دكتور إسماعيل وقلين كان أفولي هذا وحو عابي كرا وحو عني كرا الحمد لله هذا حالتي سي وناكسنت هاي هذا أنا فرح صناعي cabitaan loo cabi jiray calaanjiska oo dhibi jiray cuntada markuu wax jilacsan markii loo siinayo afka kor u taagi jiray afkiisa loo ridi jiray hada alxamdulillah afkiisa caadi u kala qaado wax walba uu cunayo wax walba uu cabi karaa. Dhakhtarka sanka cunaha iyo dhagaha Dr. Ismaaciil ayaa ka warbixinaya qaabkii ay ula tacaaleen xaaladda Xudayfe. Waa Dr. Ismaaciil Maxamed Cali dhakhtar ku takhasusay cunaha dhagaha iyo sanka qaliimadooda iyo daawayntooda intaba bukaankeena maanta Xudayfe oo wiil 10 sano jir ah maalmaha kamid wuxuu ugu soo booqday qaybta bukaan socodkayga asagoo ka cabanaya inuusan afka kala qaadi karin muddo hal sano iyo bar ah aan wax cunin biyo wax ahayn aan cabin maxaa la yiraahdaa afkii sabab la xiriirta meel uu ka soo dhacay labada dhinac oo meesha madaxa lafta garka iyo madaxa iska galaan isku raysata labada dhinac bay isku raysteen meesha laftan la yiraahdo mandibulaha ay ka gasho maxaa la yiraahdaa qaybteeda kore ee madaxa ay ka dhaqaaqdo labada meel ayaa isku raysatay sabab la xiriirtay jug oo ka soo dhacay isla markaana aan loo sameeyay markaas qaliin aan loo sameeynin wuxuu kala kulmayay ciyaalka dugsiga inuusan afkii kala qaadinay dhahin cunuga maxaa la yiraahdaa afka ma kala qaadayo wax cunaysid cunuga asiga laftigiisa maskaxiyan xataa dib u gaaray maadaama uu soo cunin korashadiisa oo yaraatay ilaan xilligii korashada maadaama uu ku jiray oo xilligii la rabay inuu cunno nutrition leh ama cunadii uu qaato aysan anficaynin biyo bis inuu cabo ama caano bis la siiyo sababtaas ay bukaan socodka noogu yimideen alxamdulillah waxaan balangareynay qaliin maxaa la yiraahdaa lagu saxaayo labadii meel ee isku raysatay meesha la yiraahdo temporomandibular joint ankylosis labada dhinac ayaa ku dhacay bilateral temporomandibular joint ankylosis waxaan u sameynay qaliin weyn oo qaatay ilaa 6 saacadood qaatay labada dhinac ayaa waxaan u sameynay qaliin la yiraahdo gap arthroblast with interposition temporalis myofascial flap oo labada dhinac meesha isku raysatay inaan kala furno labada dhinac oo labada dhinac garka meesha ka gasho madaxa ka gasho labada dhinac inaan u sameeyno gap aan u sameeyno muscle-kii temporalis muscle la yiraahdo aan soo gelino meesha laga saaray gaabka aan meeshaas si uga shaqaysiino jointiga alxamdulillah maanta bukaankeena afka ayuu kala qaadi karaa jointigiisi maxaa la yiraahdaa shaqadiisa caadi oo ugu soo celinay alxamdulillah ilaahay mahad iska leh wuxuu rabo cuni karaa bariis baasto waxaa la yiraahdaa wixii la calaliyo oo hadda laga rabo qof bini aadan inuu calaliyo waa cuni kariyaa qaliinkan noocan oo kala daada cunugan oo kaleeta waa markii uu koowaad aan la sameeyo qaliimada dadka waaweyn waan sameyn jirnay oo dadka waaweyn laakiin daadan oo kaleeta maadaama meesha uu ka jabay xilli hore hadii la keeni lahay waa jabka waa la sameeyaa laakiin asiga ahaan daadiisa markii bilateral temporomandibular joint ankylosis meesha waxaas la yiraahdo cudurkaas oo labada dhinac isku raysato daadiisa markii la dhawaa markii uu koowaad aan sameeyno qaliinkaas oo ciyaalka yararka maxaa la yiraahdaa ilaahina waa nagu guuleeyay maxaa la yiraahdaa aadana macnaha aan uga taxadarnay ilaahay ka sukow ilaahana garaadsiiyay inaan labada dhinac neerfihii waxa maro meesha neerfa la yiraahdo facial nerve oo labada dhinac neerfihii quudinaya wajiga oo hadii markaas dhaawac uu gaaro inuu bukaankii ama cunugii oo ishi xiri waayo afka qalooc ku dhaco af qalooc Soomaalidu waxay u taqaano neerfihi alxamdulillah ilaahay ayaana garaadsiiyay inaan ilaalino anatomical landmark aan isticmaalnay facial nerve-isina uu fiican yahay jointigiisina waa u shaqeynaya qaliinkina waa ku guuleysan alxamdulillah.